maamulka gobolka Togdheer ayaa soo saaray war-saxaafada hoteelada ku yaala magaalada Burco ay ku farayeen gebi ahaanba loo joojiyay munaasabadaha lagu calaamad saaray madax dhaqameedka kala duwan. Umirtan ayaa bilaabmaysa maanta oo Khamiis ah. Waxa mas'uuliyiinta hoteelada lagu wargeliyay inay u hoggaansamaan oo umirtan ay soo saareen maamulka gobolka Togdheer. Warsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdilaahi Nafuq ayaa warbaahinta la hadlay faahfaahin ka bixiyay sababaha ay keentay oo umirtan soo saareen. maanta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay joojinta ama ogeysiinta hoteelada magaalada Burco in laga joojiyay ama laga mamnuucay calaamad saarka salaadiinta ugaasyada iyo dhammaan madax dhaqameedka xuqaasha jiif caaqilada iyagoo oo maxay hayteen aan u haysan wax sharciya waxaan ugu baaqayaa hoteelada magaalada inay ka digtoonaadaan ama aan faraynaa inay wax calaamad saar ah oo salaadiina ama maxay teenay madax dhaqameeda waxay doonaan ha ahaadeen ama cuqaalaha ama jiif caaqilada ama ugaasyahaadeen inaan lagu qaban karin lana joojiyay ayaanu faraynaa waraaqahana dhammaan waan u qaybinay waxaan rajaynayaa inay amarka hadii Ilaahay idmo ay siday tahay ay u qaataan cidii qaadan weydana sharciga ayaa la marin doonaa biidilaahi kariim waxa jira isqabqabshi reeraha dhexdooda ah oo markii musharax ma la reebay ama maxay hayteen isqabsigaasi uu keenay inuu reerkii caaqil lahaa ay intay group xanaaqan yiraahdaan caaqil baanu samaysanaa caaqilkii hore ka guureynaa ama suldaan baanu samaysanaa suldaankii hore ka guureynaa arrinkaasina waxay lid ku tahay nabadgelyada iyo bulshada iska horkeen inay bulshada iska hor timaado la kala qaybsamo taana waxaan uga digaynaa maadaama nabadgelyada aanu anagu mas'uul ka nahay arrinkaas inuu na dhicin biidilaahi kariim